السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عن وناسن داودياشي إذا قيمها هي قدرين تفضل ميركستو أو طافها دنيا عالم كهات نقل سعتان ومقال هيك يموقي وبين كسو قاريو هل كان نقل سعتان وبوجوري عبد الحميد يولي ببرتان كلنا يوتيوب كه واحد ما تمرتي أبوان عبد الله إسماعيل أبوان نية سمع runtii halkan maanta ku soo bandhigi doona maasooyin kala duwan iyo gabayo isagu oo ka tiriya xaalada kala duwan isagana ay noo faahfaahin doona ugu horeyn waa ku soo dhaweeyay Cabdullaahi walaalkay Cabdi Xamiid aad iyo aad baad mahadsantahay sida sharafta bilgaha miiqaamka iyo quruxda leh ee igu soo dhaweysay iguna marti qaaday barnaamijkaaga aad baad ugu mahadsantahay waana kaaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waa ku dhawahay walaalkay hagaag أنا وأنا كم هذا علينا بالمانتا ما حد نوقطة وكل واحد مالنا رهانتي قبائل كل دوان يا مانسوين كل دوان وواحد جرحلي كل دوان أترسي أو أذوق حالة كل دوان يو المتقنة هذا فيه يا ميل جارة أذوق ودي أو أذوق أترس بالمركة ما حد نلو ذاك تمام والله ورنت عبد الحميد وهرت أنت بدن حاجة جعيل كان اللي جموه أيو دون تا جعيل كوان سهران هاي وانقروه لكن قر الله عليه قر عن دون تافولي مركة inta badan waxaan ka gabiyaa ama ka maansoodaa xaaladaha jacaylka ama lamaanayaasha inkastoo la moodayo waayadan dambe ama hay'ad loo janjeero in Soomaalidii jacaylkoogii inuu intii hore dhaafay iyo in jacaylka la fahmay kala garan maaye wax badan baa soo ifbaxaya marka waxaan arkay gabdho badan oo waxaad arkaysaa hal wiil jecel ama wiil ama hal gabadh wiil badan jecel yihiin oo dadooqa bini aadamka marka anigoo dareenka ka hadlaya yacnaha jacaylka caynkaasa ayaa waxaan idhi hadii bini aadamku ama qof walba uu lahaan ama qof walba uu leeyahay qalbiyo badan oo caashana qalbi siinayo wiilku xaliimana qalbi siinayo cibaadana mid kala siinayo iyadna sidaas oo kale gabadhu ay qalbiyo badan leedahay oo Cusmaanna mid siinayso Faaraxna mid siinayso warfaana mid kala siinayso fiicnaan lahayda baan fiicnaan lahayda baan marka waxaan idhi bal wax yar ka hadal waxaan idhi inkastoonan qaban karin waxa damacu qaayibay haddii aan qaybsami lahaa qalbigaygu tira yahay qoomamka i jecel baan qarqarasiin lahaa ruux walba qosol iyo qanaacaan badi lahaa qalbi jabay lama arkeen iyo qof cabanaya aniguna qun yar baan qamartii aan jeclaa nolosha qiimaheediyo قود لو ذاقي له هجاك إذا قلبي يدي بديهين صومه مرة دي بديهين مدول بمد قيبا سين له هجاك قلبي يدي فر بديه تردي صومه دبيتنا أنا تان ربان اسمه هيل لها صح بركة مدة سدير على فينا له إذا ما يوسف صورة قلبي هجاك هانو مرينا بركة بريق هو واحد اللي يجري ويل كبر ده وطنته حتى أنت وسوه يسني حتى كبر ده اسمه يقول يمكن haddii maanta gabadha lagu meheriyo iyo reerkoodii joogta adaab waa iska islaantaadii oo wax weeyaan waxaan malaynayaa islaameenka baa hawshu way socota hagaag laakiin berigi hore xitaa ceeb bay ahayd baa la oran jiray in wiilku gabadha marka uu doono in uu iska agurwareegaan intaan soo hoysan oo xitaa reerka kala sharaf dhac bay wahay laakiin iminka horta run ahaantii sida xitaa culimadu waxay ka hadlaan waxa la yiri waan ku dhimanayaa iyo waa dataabaan u jiifaa iyo laanta ma neefsada iyo wax ma cuno iyo erayo noocay in inta badan la isticmaalo dadku jacaylkiiba waxay sheegay xitaa culimadu dibadaba lagu sii kala dhameys marka sariirtii la isugu tagana horeyba wixii loo sii isticmaalay waxna macna weyn ku fadhi arrinkaas ayaa ka wareemay xaqiiqatan waa arrin aad cajaa'ib ah markaad fiiriso dhaqankeennii iyo la sooyaalkeennii ay Soomaalidu hore u lahayd wax badan bay ku kala gadisan yihiin waliba markaad dhanka fiiriso ay jacaylkan iminka ama noloshan haddana ay dhankii hore kaga qurux badan tahay laakiin marka la yiraahdo haasawihii iyo xagga kale dee sharaftu waxay ahayd mid sidkan oo ku xidhan dhaqanka dee qofka in badan iyo ceebo fara badan uu leeyahay ayaa markaa ka daahanaayo hore looma arkayni sax hadda waxaan maleeyaa wixii waliba wax kastiba inay isku sii deys yihiin marka haddaba marka laga hadlayo dhaqamadii hore oday baa maalin iga sheekeeyay waqtigii ay soo ifbaxaysay in ninku uu gabadha su'aalo weydiin karo ama uu la haasawi karo waqtigaasina waxay markuu wiilku u yimaado gabadha iyadoo xoolihii eegaysa geedku xagga ka soo istaagay iyadna xaggana ka istaagaysay deebato markuu ku soo wareegay iyadna ka sii wareegaysay u shay la yar dhacaysay ooda ama xarig bay soo haysaa inta isna u shib iska wata ku wareeg markuu yiraahdo way daba wareegaysaa la isma arkayo geedkan halka markuu ninku ka soo baxo geed bay doonan jirtay
geedkaas bay marka xaggaa sheeka maraysay hadallada halkaaba la isku tuurtuurayay markaa maalin maalmaha ka mid waqtigu haasawahay jiray ayuu wiil arkay gabadh in adeertiya uu wiilkani ka sii socdo waxoogaa gabadhiina ay ilmaynayso markaa wiilkan labaadi gabadhan bay ilma adeer yihiin wuxuu ku soo baxay gabadhii wiil ka sii socdo gabadha ay ilma adeerka ahaayeen gabadhiina ay ilmaynayso ninkii uu fajacay isla markiiba uu soo noqdo qori buu doontay صح ninkiina uu arkay ninkan ku sii socday ee ku soo socday haddana noqday waayahay uu baxsaday meeshii uu iskaga baxsaday idan uu fahmaya waxa meesha ka soo socday dabadeeto arrintii baa ballaaratay labadii reerkii gabadha ee ka soo jeeday iyo reerkii wiilkan la arkay soo gabadha ka sii socda uu ka soo jeeday ayaa isku garbigtay gabadhan de xaalkayga hana la siiyo baa la yidhi waad ka oohiseen ha waa arrin adag wey hay markay arrintii meel adag marayso ayuu wiil ay ilma adeer ahaayeen oday ay ilma adeer ahaayeen wiilkan gabadhu ay ka oyday ayaa yidhi adeer maxaad gabadha ku samaysay markaas buu yidhi adeer gabadhu waan ku jecelahay bay i tiri weliba waan ku jecelahay may odhanine in adeeroo waan ku rabaa bay i tiri erayga waan ku rabaa ayaa de wax weeyaan horta waan ku jecelahay beriga afka balgama soo bixin jirin xataa kuwa isqabaanan odhan jirin dabadeedna waxaan idhi walaaloy hawshaasi hawl ani ii taalmaahin iga raali noqo baan idhi mar haddiiba intay afkaygii ka soo baxday iyadoo ka yaqyaqsoonaysa oo ka muruga qabta oo u haysata dee inay wixeygii iyo gabadhnimadeedii iyo hawsheedii oo dhan baa dibadda dhigtayba u dhigantaayde gabadh waqtigaa tiri dee nin waan ku rabaa waan ku jecelo cadaada ma odhin in adeero waan ku rabaa bay tiri uu isna ka aqbali waayey dee waxay ku noqotay uur ku taalo way ilmaysay gabadhii ugu dambayna waa ka wiilkani arkay markaa wuxuu yidhi adeero gabadhu saabay iga oydee waxaan ku sameeyey ma jirto dee markii gartii geedkii la iskugu yimid dee la isku jilbi dhigtay ayuu odayga yidhi waryaadaheen gabadhu iyadoo ooysoon baad aragteene gabadhu may naga oyday mise way noo oyday bal dib iskugu noqday odayaashii way wada aamuseenoo dee waa mid walba hoos buu foorarsaday markaas buu yidhi gabadhu way noo oyday dee meherkaygii naga qabsado gabadha noo meheriya sax wey markaa arkaysa marka waxay ahayd waqtigaas inuu gabadhu ay tiraahdo wiilka waan ku rabaa waxay ahayd arrin ceeb ah oo la soo bandhigi karin imika dhulka Soomaalida meelaha qaar marka tagto runtii waxa lagu oran hablaha qaar waxaad arkaysaa way kula hadlayaan ku salaameyntu hadii waxay ku oran meelaha qaar xagee islaad keenaysa noo sheeg 6 lambarta naga buu soo wicbe ma adinaay marka siiro ku soo noqonaysaa marka horta jigjiga أنا أرتا حران ما نشوف جرين لكن جيجا طبيعتها هيسكال هذا واحد ويرتا حبلها على سكول ما هذا ولا على تطري هذا ما السلام عليكم حتى تطري كبتوا يكون طالع